السلام عليكم soo dhawaada maanta waxaan sameynaynaa buskut oo ciida lagu talgalay ciidaa soo dhow marka bariyahan waxaan soo dhigi doonaa buskutyaal oo ciida lagu talgalay marka maanta waxaan sameynaynaa buskut oo abricot sham laga sameeyay kan waaye laakiin waa idin tusaa sida loo sameeyo daawasho wacan marka waxaa loo baahan yahay saliid oo 150 gram sonkor oo 150 gram saddex xabo ukun maizena cornstarch ama warangaal dhaawmlena 150 gram baking powder iyo kan jamkan hadda waa ka saaran marka ugu dambeysan waxaad ku ridaysaa 2 bakeeri oo bur ah intaan waa isku qasaysaa ilaa ay si fiican isku dhex galaan kadibna waxaad ku ridaysaa 2 bakeeri bur mashiinka markuu ku qaso gacmaha ku qas mar labaad siday si fiican jilaac u noqoto kadibna dabool hadda waxaan sameynaynaa shaamka ama malmalaadada sidaan hadda buskutka u dhex gelino digsi yar aad gelinaysaa dabkaad saaraysaa siday u dhalaasho haddaad rabtid waxaad isticmaali kartaa shaamka guduudan dooqaagay ku xiran tahay sidaan markay u ekaato ay biyo u noqoto ayaa dabka ka diminaysaa buskutka markaad gacmaha ku wareejinaysid saliid marso siday gacmahaaga ugu dhigin sidaan oo kale aan u yareynaysaa
kadib foornadaad gelinaysaa, waxaad u gelinaysaa 180 degrees ilaa 25 daqiiqo. foornada markaad kasoo bixisid waxaad sii diyaarsanaysaa qumbaha oo hadduu aan ku kor shubeyno iyo malmalaadii ama shaamkii aan diyaarsanay. waxaad sameynaysaa buskudka waxaad gelinaysaa shaamka ama malmalaadada, waxaadna ku dambeynaysiinaysaa kookoska ama qumbaha. waa idin tusaa laakiin sida loo sameeyo. aniga waxaan isticmaalaa 2 farkeeto siday malmalaadada si qiyaas u mariyo. waa mahadsantihiin, waa inoo fiidiyowga dambe insha Allah.